asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale ramadaan kariim waxaa inoo socda barnaamijkeena ramadaan english series waana maalintii saddexaad waxaana ku baranaynaa the first night and starting the routine habeenka ugu horeeyo iyo bilowga caadada bisha ramadaan. routine waa caado weyaan. routine waa caadooyinka ama waxyaabaha soo laalaabanayo. soo dhawaada mar kale, waa aniga ayaa idiin soo gudbinaya ustaad maxamuud axmed xaaji from wax ka baro academy. muddo 15 sano ka badan luuqada barayay. cashirkani ama waxaan ku bilaabeynaa ereyga ugu horeeyo, jumlada ugu horeysa ee aan baranayno waxa weeyaan I'm heading to the masjid or mosque to catch the first night of Tarawih prayers. Waxaan ku socdaa ama aan usii socdaa masaajidka si aan uga gaaro salaada habeenka ugu horeeyo ee bisha bahalka taraawiixda, salaada taraawiixda. heading to, marka heading to waxa weeyaan waa meesha aan kusii jeedo ama aan usii socdo. waan usii socdaa weeyaan ereygaan baranayno waa heading to. to catch waxa weeyaan ka gaarid weeyaan, ama inaad qabsatid ama aad ka gaartid weeyaan. marka qaybta commentiga waxaad kusoo qoraysaa jumlooyin aad u isticmaalayso heading to iyo to catch aad u isticmaalayso. to catch inta badan waxaa loo isticmaalaa basaskoo kale, tareenadoo kale, diyaaradahoo kale waa loo isticmaalaa, soo maahan. heading to meel walbana ayaa loo isticmaalaa. marka jumlo ma weyn doontid aad u isticmaasho, fadlan qaybta commentiga kusoo qora. hora jumlada af soomaaliga waa inoo sharxay. waxaan fiirinaynaa vocabularyga. maxaan baranay heading to oo ah usii jeeda ama u socdaa weyaan. going towards a place weyaan, meel inaad u socotid weyaan. to catch waxa weyaan inaad ka gaartid ama aad gaartid weyaan, ama to arrive at time in time for something. to arrive in time for something, in aad waqtigii loogu talagalay aad ku imaado meesha weyaan. applicationka haddii aad iga daawanayso, codadkani videoga hoostiis ayay yaalaan oo aad dhageysan karaysaa. alright, qaybta labaad ayaa u gudbaynaa. I need to adjust my sleep schedule so I can wake up early for sahur. waxaan u baahanahay jadwalkayga hurdada inaan isbeddel aan ku sameeyo si aan xilli hore u soo kaco. ramadaanka faa'iidooyinka uu leeyahay waxa weeyaan nolosha ayuu wuxuu nagu qasbayaa in aan nolosha sida ugu wanaagsaneed ee loo noolaa lahay aan u noolaano. haddii aad caado u laheyd oo kale inaad habeenkii o dhan aad soo jeedid oo kale, ama xilli dambe aad hurdada ku gaartid oo kale, waxa weeyaan soonku wuxuu kugu kalifayaa inaad xilli hore seexatid si aad markaa suxuurta la gaaro adigoo hurdadii qabya kaa tahay aadan u soo kicin. so ereygaan baranayna waxa weeyaan adjust waxa weeyaan waa hagaajin ama wax ka bedelid ama toosin weeyaan. waxaan toosinayaa ama isbeddel ku sameynayaa schedulekayga, sleepkayga, waqtigayga hurdada si aan xilli hore u soo kaco. waxaan u baahanahay in aan wax ka bedelo jadwalkayga hurdada si aan xilli hore u soo kaco. alright, suxuurta ugu soo kaco. adjust maxaa weeyaan wax ka bedelid ama hagaajin weeyaan. to change something slightly to make it better, inaad wixii wanaajisid weeyaan. sleep schedule waa jadwalka hurdada weeyaan, jadwalka hurdada. marka intaadan ka gudbin, isku day qaybta commentiga inaad kusoo qortid labadan erey adigoo jumlo gelinayo. adjust kasoo shaqay, hagaajin ama wax toosin weeyaan. sleep schedulena ayadana soo geli. sleep schedule haddii aan idea kasii qaabkaad u gelin karaysid, waxaad ka fikirtaa safar dheer oo 2 maalin soconaya oo kale, siduu jadwalkaaga hurdada u carqaladeeyey ayaa jumlo ahaan usoo qori karaysaa. alright, haddii aad ka walwalsan tahay jumlooyinka inay wax kaa qaldamaan oo laga arko, fadlan haddii aad luuqada ingiliishka baranaysid ama wax aad baranaysid inaad wax qaladid ceeb ma ahan. wuxuu ka mid yahay safarka barashada ayuu ka mid yahay. fadlan ha ka xishoonin marka inaad wixii ay kula tahay aad soo qortid hadduu ilaahay ka raali noqo. alright, there is such a peaceful atmosphere at the mosque on the first night. jawiga masaajidka ka jiro waxa weeyaan waa jawi nabdoon weeyaan habeenka ugu horeeye. masaajidka ayaa tagtay habeenka ugu horeeye, qof ayaa marka ayaad u sheegaysaa masjidka jawigiisa siduu yahay, soo maha. peaceful atmosphere, erayadan baranayna waxa weeyaan peaceful waa nabdoon weeyaan, jawi nabdoon. atmospherena waa jawi weeyaan, atmosphere waa jawi.
waxaa ka jira jawi aad iyo aad u nabdoon masaajidka habeenka ugu horeeya, the first night habeenka ugu horeeya. Good. Peaceful waa jawi nabdoon weeyaan. Jumlo kale soo geliya, waxaad ka hadashaa tusaale ahaan oo kale magaalada aad ku nooshahay oo kale siday u nabdoon tahay ama siday u nabdoonaa jirtay. waxaad ka hadli karaysaa xayawaanaadka oo kale oo aan dadka dhibin oo kale oo aan dadka cunin oo kale ayaa isticmaali karaysaa. Peaceful animals. Atmosphere waa jawi weeyaan, jawiga runta sida cimilada guud ama jawiga wax lagu cabiro oo kale sida xaafada oo kale ama goobaha shaqada oo kale jawiga ka muuqda oo kale. The feeling or mood of the place, xaalku siduu yahay ayaad ka hadli karaysaa. Alright, quizka ha laga soo shaqeeyo. waxa weeyaan waa 4 su'aalood weeyaan. haddii aad applicationka soo dejisanin fadlan soo deji oo kadibna quizkani ka soo shaqeey. wax ka baro academy mar kale kusoo biir. waxa weeyaan waa manhaj caalami oo la dhaho CFR. jawi aad iyo aad u wacan ayaadna luqadda ingiriishka ku baran doontaa, waadna ku raaxaysan doontaa. haddii aadan weli fiirinin faahfaahinteena fadlan fiiri. soo dhawaada mar kale una diyaar garooba casharka xigo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.